dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday in la dhameystiray isbedel lagu sameeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya. Sidaas waxaa sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi, Nabiid Getachew, oo saxaafadda kula hadlay Addis Ababa. Mr. Getachew waxa uu sheegay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya oo la dejiyay 24 sannadood ka hor imika lagu sameeyay isbedel uu sheegay inuu la jaan qaadayo dunida iyo gobolka Geeska Afrika. waxaanu sheegay in qorshaha siyaasadda arrimaha dibadda Itoobiya hadda la dejiyay ay 7 bilood ee ugu dambeeyay diyaarinayeen khubaro isugu jirta diblomaasiyiin iyo macallimiin jaamacadeed kuwaas oo hadda dhameystiray. Getachew oo arintani ka hadlaya waxa uu yiri siyaasadda cusub ee arrimaha dibadda waxaa si rasmi ah loo daafuraya maalmaha soo socda waxaana loo diyaariyay iyadoo oo la tixgelinayo kobaca bulshada Itoobiya oo markii siyaasaddaasi hore la sameeyay 24 sannadood ka hor tiradoodu ay ahayd 60 milyan halka haddana ay ka tahay 100 milyan. sidoo kalena waxaa lagu saleeyay gobolka qaaradda iyo adduunka oo dhan. afhayeenka oo ka hadlayay saameynta siyaasaddan cusub ee Itoobiya ee Geeska Afrika waxa uu sheegay in isbeddello badan oo imika soo kordhay ay sababeen isbeddel in lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya. waxaanu yiri dhalashada koonfurta Suudaan, dhameystirka xaaladii colaadan aan ahayn nabadaan aan ahayn ee Eritrea, isbeddelka xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo arrimo kale oo badan ayaa sababay isbeddel in lagu sameeyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya. isbeddelka cusub ee lagu sameeyay siyaasadda arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa waxaa la filayaa inay saameyn ku yeelato Somaliland iyadoo siyaasaddaas hore ee Itoobiya ee kharajigu ay ahayd halka uu ka dhismay xiriirka Somaliland iyo Itoobiya. lama ogeyn xukuumadda madaxweyne Biixi la socotay isbeddelka cusub ee Itoobiya ay ku sameysay siyaasaddeeda arrimaha dibadda oo muddo 7 bilood ah haatan lagu soo guda jiray.